horta sabab ha u noqonina maalmo inay shabaab dhexdiina ku sii nabad galaan nabadgeli maayaan haddii ilaahay idme adinku inaad bartilmaameed noqotaan oo aad ku argagixisan noqotaan oo adinka laydin baagsado berrina sabab ha u noqonina haddii ilaahay idme hadda waan naqaanaa annagu dadka u tegay waan naqaanaa kuwa la shiray waan naqaanaa dowladda Soomaaliya haddii ilaahay idmo meesha iyada ka mas'uul ah way joogtaa waan imaanaysaa haddii ilaahay idmo qof kasta oo shabaab la macaamila oo macaamil la yeesha wuxuu qaadan doonaa odayaasha adeeryaasheena oo la jiido la xiriray inuu ka fiican yahay maya ayagii kale xukunkoodii qaadana waa la xiraa waa la dilaa waa la dhibaatayna iska koobaad inaan markaas adinka aan la hadlay hadda idin hanjabaayna ma horta ha u qaadanina laakiin waxaan rabaa inaan idin muujiyo cadawga Soomaaliyeed oo aan waayeel deynayn oo caruur deynayn oo haween deynayn oo culimo deynayn inaan wax cudur daara oo maanta uu yeelan karo oo macaamil la yeelan karo inaysan jirin shalay waxa la idin yiri xoolaha bixiya way yeesheen waxa la idin yiri caruurkeena way yeesheen waxa la idin yiri waa la idin maamulaa oo si walba la idin maamulaa yeela habeenka la soo diro in la dhigi jiray waxa weeye la diri jiray xataa waa nolosha waa ogna waa dhan waa ka warqabnaa kulliyan waxa weeye waxaan soo dhan aqbasheen marka aqbasheen ka bacdi maxaa la idinku sameeyay adinku inta snaf ka raadinay idoor waxaan maadiyoon malabu daad shaaba salaan aan milgalahay waxaan mid ka siyaabo madadaalo beeniyo waxaan maanta ku hayaa maqrib dumaysidiisa xariyaha muu madoobay waa un intaas waxa la idin wadaa maanta waxa la idin leeyahay qoryaha duugta hadda sheekhu wuxuu ka hadlayay waxa la idin leeyahay qoryaha duugta maantay berri waxa la idin leeyahay xoolaha keena saadamba waxa la idin leeyahay caruurta keena la idin leeyahay maxaa la baraa taasa laftirkeedu isweydiin mudan sheekhana wacdiyay ilaahay khayr badan ha siiyo wixii la dhihi lahaana sheekha yiri wax kala dhihi mayno dhowr qodob ay yaraan rabaan isdul taago waxyaabaha hadda sheekhu ka hadlay umbay daba socdaan wax kala ma ahan waxaad ogtihiin horta nimankan adinka kaliya cadawdeen ma ahan ilaahay diinkiisa cadow ku yihiin dalkay cadow ku yihiin diinka culimada xambaarsan culimaduna waa waxay dilaayeen oo weerarayeen oo dhibaateynayeen hadda masaajidda waa aragtay masaajidka baxday iyo intiina nina tagin ma la arkaa aan arkay rag badan oo tagay idin ku jira hadaan hata rag wada tagay waxa ku yaala waa aragteen biitemka iyo biinanka iyo sabanka iyo dhashika iyo shilka iyo waxa lala dhacay Soomaaliya arkin masaajidka ilaahay cid wax ka qabaan la arag qofka uu ka nabadgeli waayo horta wax ka nabadgelaya ma jiraan qofkana waxa laga fiiriyaa sideedaba inuu maalin kasta uu qof cusub ku ahaado lama rabo qofka maalin la bartaa waxa la yiri qofaad maalin ku baraweyday qofaad bari ku baraweyday bil kuma barati shabaab hore u baran maantay ayagoo meesha ugu dambeeyay taagan galguduud oo hadda maanta aan taaganahay qaybo ka mid ah al haysta oo ciidankii waxa weeye uu soo gaaray hawlgalka wada halkan laftirkeeda lagama fadhiyo lagana fariisan maayo dilahay idmo shaqa socota shaqadaas waa shaqa Soomaaliyeed oo maanta ay ku faraxsan tahay qof kasto damiir Soomaalinimo ku jira oo ku faraxsan yahay oo rabo dalka iyo dadka inuu xoreeyo waxa weeye oo shaqadaas la rabo in la dhameystiro hadii ilaahay idmo horta sabab ha u noqonina maalmo inay shabaab dhexdiina ku sii nabad galaan nabadgeli maayaan hadii ilaahay idme adinku inaad bartilmaameed noqotaan oo aad ku argagixisan noqotaan oo adinka laydin baagsado berrina sabab ha u noqonina hadii ilaahay idmo hadda waan naqaanaa annagu dadka u tegay waan naqaanaa kuwa la shiray waan naqaanaa dowladda Soomaaliya hadii ilaahay idmo meesha iyada ka mas'uul ah way joogtaa waan imaanaysaa hadii ilaahay idmo qof kasta oo shabaab la macaamila oo macaamil la yeesha wuxuu qaadan doonaa odayaasha adeeryaasheena oo la jiido la xiriray inuu ka fiican yahay maya ayagii kale xukunkoodii qaadana waa la xiraa waa la dilaa waa la dhibaatayna iska koobaad inaan markaas adinka aan la hadlay hadda idin hanjabaayna ma horta ha u qaadanina laakiin waxaan rabaa inaan idin muujiyo cadawga Soomaaliyeed oo aan waayeel deynayn oo caruur deynayn oo haween deynayn oo culimo deynayn inaan wax cudur daara oo maanta uu yeelan karo oo macaamil la yeelan karo inaysan jirin
shalay waxaa laydin yidhi xoolaha bixiya way yeesheen waxaa laydin yidhi carruurkeena way yeesheen waxaa laydin yidhi waa laydin maamulaa oo si walbaa laydin maamulaa hiyaala habeenkaa la soo diro in la dhihi jiray oo waxa weeye la diri jiray xataa waa nolosha waa ognaa waa dhan waa ka warqabnaa kulliyan waxa weeye waxaasoo dhan aad aqbasheen markaa aqbasheen kabacdi maxaa laydinku sameeyey adinkoo intaas naf ka raadinayay maalin kasta ma goobaynaa maalin dhayli ma goobaynaa dad ahaannimo maahan wax la aqbali karo maahan wax la yeeli karo maahan waxaa laydinka rabaa haddii ilaahay idmo inaad waxa waaye waxaas aadnan qaadan aadnan yeelin aadnan waxa weeye waxbaba haba yaraatee wax aad aqbashaan inaysan jirin oo noocaasi nin la yidhaha sayid maxamed cabdilla xasan sayid maxamed cabdilla xasan sayid maxamed cabdilla xasan waxaa la yidhi hadda kahor niman laa isaaqay dirireen markay dirireen isqabteen oo wuxuu sameeyaa la yidhi wuxuu yidhi meeshaan nimanyo soo dega tartiib waa laydin maaragtay waa nabdaynaa xaaladda waa hagaajinaynaa soo dega markay soo degeenoo meeshii uu jawigii ay istireen jawigu waa degan yahay uu dhaca waana laayey gabaygu ka tiriyo wuxuu yidhi iidoor waxaan maadiyoon malab u daadshaaba salaan aan milgelahayn waxaan midig ka siyaaba madadaalo beeniyo waxaan maandha ku hayaaba maqrib dumaysidiisa xeryaha ma u madoobey waa un intii waay intaas waay waxa la idin wadaa